waxaa barnaamijkani inoogu marti ah oo si toosa iskugu wajihi doona raaxeeye oo aad wada garanaysaan weriyaha sida khaaska inta badan uga warbixiya maamulka galmudug golaha eedna member culus ka ah iyo sidoo kale mirifle oo kamid ah mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka golaha eed isla markaasna kasoo jeeda maamulka southwest sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa laga weydiiyo sidoo kale raaxayana arrimahaas waxa laga weydiiyaa anigoo jaamacada ayaa barnaamijkan idin socotiinaya oo u qaybinaya hadalka ama meega barnaamijka kursiga kulul oo labadan in ay isku imaanayaan dhageystayaal badan oo golaha dhageysanaya oo dooda markay dhageystaan kadib way ka falanqoon doonaan labadinaba waa soo dhaweynayna doodan iyada haddii aan dhageystayaal aan dib u jilay oo milicsado ama aan idin xasuusiyo waxay salka ku haysaa siyaasadda gobolka Shabeellaha Hoose oo gobolkaasi hoostaga maamulka Southwest burburkii Soomaaliyeed kadib waxaa dhacay meelo badan oo gobol ah ama deegaan ah oo muran uu dadka Soomaaliyeed ku soo kala dhac galo gobolkan isaga ah ayaa waxaa xasuus mudan inuu yahay gobolada dhibaatooyinka badani uu sababay inay ka dhacaan dagaalka sokeeye xaaladiisuna waa mid ilaa hadda taagan waana sababta dooda kursiga ku dhalisay inay isaga hor yimaadaan mirifle iyo raaxeeye waa tahay barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa marka ugu horeysaba raaxeeye su-aashii ugu horeysay raaxeeye kusoo dhawow golaha idhaad iyo barnaamijka kursiga kulul waxa ugu muhiimsan oo aad rabtid inaad ka hadashid oo quseeya maamulka Southwest iyo gobolka Shabeellaha Hoose adigoo soo koobaya muddo 3 daqiiqo ah kusoo dhawow aad jaamacada ugu salaamaya saaxiibkay mirifle oo ila doodahayana kursiga kululna waa salaamaya oo soo dhaweynaya golaha dhamaantiisna waa salaamaya sida ula socotay jaamac waxaad ogtahay Shabeellaha Hoose inay ka jirto arrimo siyaasadeed oo maaragtay aad loogu kala duwan yahay maamulka Southwest markii laga hadlo anigu waxaan aaminsanahay in maamulka Southwest aan member weyn ka ahay deegaan ahaan aan ka soo jeedo oo aan sheegan karo markaan ka hadlana waxaa concern iyo complaint markasta ka keena saaxiibkay mirifle iyo asxaabta ku siyaasadda ah marka waxaan rabaa maanta in dadka winaha golaha IDA iyo waliba dadka kale oo dhageysan doona maadaama uu record yahay inaan u faahfaahino horta Shabeellaha Hoose siyaasadiisa sida loo degan yahay dhaqaalihiisa iyo waliba dadka hadda ugu awoodda badan 90% in dadka Soomaaliyeed aan u sheegno ay la socdaan marka kursigan kulul waxa weeyaan walaalle oo anigu aniga saaxiibkay aan isku ballansan waxa weeyaan in ummadana aan ka maaragtay ka hadqatifno una sheegno waxa ka jiro markaste oo Shabeellaha Hoose la soo qaato mirifle dadka anigu aan ka soo jeedo ama beel ahaan ka soo jeedo ama isirhaan ka soo jeedo uu ka faquuqay wuxuu ka dhigay dad aan deegaan ku lahayn Shabeellaha Hoose laakiin waxaan rabnaa maanta inaan cadeyno miiskana saarno in deegaankaasi aan leenahay majority ka nahay awoodiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa intuba in anagu uu xadiisa yahay waxaan haynaa reference iyo wada cadeymo ka soo bilaabanaya 1950 ilaa iyo hadda aan iska soo saarayno dadkii ka soo bixi jiray dadkii ka shaqeyn jiray iyo dadkii governor intaba ka noqon jiray waxa rabaa marka saaxiibkay adoo ku sii socon doona arrintaas iyada oo ku cadeynaysid gobolka waxa ka tahay xilliga tidi marka laga hadlayo gobolka Shabeellaha Hoose dadka Soomaaliyeed waxba u sawiran oo dadba halkaas lagu yaqaanaa oo dega adiga raaxaya markaan ku imaado waxa tahay nin reer muduga magaalada Gaalkacyo ka yimi maamulka galmudugna ka arrimiya dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin burburkii Soomaaliya kadib meeshaas inaad ku tagtay adigoo Malaysia intii ka dambeysay oo 27 sano halkaas xoog ku haysatay dadka fakarka qaba Soomaaliyeed maxaa ku qancinaysaa waxaan ku qancinayaa aniga oo reer muduga inaanan ku tagin meeshaas Malaysia xoogna aan ku qabsan 1950 baan ku yiri Malaysia banaha isagoo ku xidhanaa 1950 baan gobolkaas ka soo gali jiray deganaa dhaqaale ku lahaa dadkayguna ay xukumi jireen waa 1950 dawladii Cabdullaahi Ciise dawladii Cabdi Cabdirashiid iyo tii Maxamed Siyaad Barre intaba marka wax Malaysia la yiraahdo iyo wax xoog lagu qabsado midna ma jiraan waana cadeynteedina waa ina reference sida la markiina miiskan saarayna maanta waana la kala baxaya
هذا دوما صدق راحية أيوة برنامج كرسي كلول سؤال شو جوه رئيسي أيه هاي تاسي واحد نقول بيا مريفلة أو عاد ولا درنا إنسان مريفلة كوسو دو دبعة ومغلى سي راحية صدق بدقوا جوه رئيسي بل وحي علىها وقول من يمسن صود ويستي يقبل كاسي سجع شبه الله وصي horta waad mahadsantahay codkayga see umaqashaa si fiican horta niyo aad iyo aad baan umahadsan tahay jaamaciyar ninka walaalkayga raaxayana wuu mahadsan yahay oo doodan halkan golaha ADN ku wada doodan inta ummadda Soomaaliyeed oo golaha ADN naga dhageysanayo horta run ahaantii anigu ma balansan ninka la yiraahdo raaxay inaan gobol Shabeellada Hoose iyo arrimo quseeyo South West inaan kala hadlana ma aha wax arigu ku aankayga ah laakiin waa dalab oo ay dalbadeen mujtamaca guud ee golaha ADN oo ay jeclaadeen inaan la doodo maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo raaxay maadaama dalabkaas uu yimid aniguna waan maaragtay ogolaaday inaan horta dooda kala qayb qaato gobolka Shabeellada Hoose ma aha state hadda cusub oo la helay ma aha waxaan rabaa horta inaan proof gareeyo hadallada hadda saaxiibkaygu uu sheegay kulli dadka golaana way dhageystaan ummadda Soomaaliyeedna way yaqaanaan deegaankaasi gobolkaasi waa 8 degmo waqtiga hadda la joogo oo xaaladiis ay ugu xun tahay oo la leeyahay waa lagu aafsaday waa la haystaa 8 degmo iska daa asagoo raaxayo reer mudug ah kuwa marka qaarka sheekada ay ku xumaato uu yiraahdo israa'aan bal maaragtay wax naga wada dhaxeeya hal degmo oo gudoomiye ay ka yihiin male 8 degmo waxa gudoomiyalka ah degmada Afgooyo waa galadi degmada marka waxa waaye waa biimaal degmada Wanluweyn waa Shanta Caleema degmada Qoryoole waa Jiid degmada Kuntuwaare waa Jiid degmada Sablaalo waa Tuni degmada haddii Ilaahay yiraahdo Baraabo waa Tuni marka hatta qolooyinku uu sheeganayo uu leeyahay isra ahaan oo marka sheekada ay ku xumaata asagii adeerkiis Axmed Diiri oo magacooda ay soo qaataan hatta hal meel ay gudoomiye ku xigeen ay ka yihiin male horta laanshaha golaha horta laanshaha gobolka waxaan rabaa inaan horta maaragtay hadduu Ilaahay ku roon yahay horta daaqada saa ee ugu baxda daaqada ka baxday aad baa maasanta daaqada ka baxday aan hal su'aal ku weydiiyo adoo ku sii socon doona barnaamijka 3 daqiiqo waa gabagabo gobolka ninka la yiraahdo raaxay sidoo doonada ku yimaado su'aal baa weydiiyay dabcan uu ka jawaabay gobolka wuu joogaa awood buu sheegtaa oo uu gobolka uu ama ku haysto ama si kala hawla macaamilo cabashooyinkiisa iyo dhibaatada gobolkaas ka dhacdana inta badan dadka Soomaaliyeed way og yihiin maamulka South West ayuu hadda gobolka hoos tagay kadib dowladda federaalka iyo maamulada la dhisay maamulka South West iyo mas'uuliyiintiisa iyo ciidankiisa gobolka dhibaatooyinka ka jirta oo lagu eedeynayo raaxay iyo xaafadiisu inay wadaan amnigaasi isaga ah way sugi waayeen mayaydan ku fashilnayn arrinta iyada ah maadaama si ay waxba ka qaban weydeen maxaad ugu haystaa raaxay horta niyow waan mahadsantahay jaamacow sideedaba wax markii la dhisaayo ama la saxaayo ama la toosinayo mudday qaadataa maanta waxaa laga hadlayaa gobolka Shabeellada Hoose before marxuumkii Allah u naxariistay madaxweynihii ku meel gaarka Cabdullaahi Yuusuf Axmed 8 degmo ee gobolkaasi waxa uu wada talinaya beesha hadda adigu magaca afka ku dhufatay oo leedahay reer mudug ayaa ka ah 8 degmo hadda aan sheegay plus gudoomiyahooda gobolka maanta maamulkii wuxuu gacantiisa soo galay dadkii deegaanka waxaana u malayn maayo muddo 27 sano draagis lagu abuuray dad lagu abuuray dhibaato wixii adduunyada ugu weyn oo buwaagta adduunka laga qora dadkii muwaadiniinta dhulka u dhashay biyihii wabiga laga iibsaday in nin Soomaaliyeed deegaankiisa asagoo degan kafiil laga noqdo shakhsi kale state kale ka yimid oo qori caaradiisa kafiil ugu noqdo xaaladaas la soo maray marka aad ma santa waa kugu soo laabanaya waqti fiican oo siin doona ana ka soo dhaxgalay waan la socdaa aad iyo aad raaxay ma tama ku soconaada gaari hortay waa jaamac loo masantahay horta waxaan rabaa Mirifle wuxuu yiri saaxiibkay gobolka Shabeellada Hoose oo 8 degmo ah dhamaan waxa ka ah dad asagu macnaha isxijinay oo gudoomiyaasha ah laakiin waxaan rabaa og sheego kale
sideedaba horta ku-xigeenadooda iyo xogeeyahooda dhammaantood iyo taliyaasha ciidamada horta aniga ah waxayna sidaas ku noqotay waxa weeyaan hadeer markii federalismka la qaatay oo dowladii xasan sheekh maxamuud la dhishay South West baa aniga waxaa la isoo xijiyay maadaama aan ka soo galayo galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir in sidaas awood qaybsiga aan dadkan walaalaheena oo dariska nala reer South West in maaragtay South West degmooyinka iyo goboladooda maaragtay la dhaqaaleeyo oo maaragtay gudoomiyaasha degmooyinka gobolada laga dhigayo inta ka hooseysana la qaato dadka la siiyo marka awood qaybsi ayaa laga raadinayay iyo soo dhaweyn waxa loo siiyay maahan majority ay ka yihiin awood ay ka yihiin dhaqaale iyo siyaasadda waxa loo siiyay waxa weeye dawladii xasan sheekh maxamuud ayaa meesha lagu socodsiinayay federalismkana waa lagu socodsiinayay dadkaana waa lagu soo dhaweeyay laakiin markii la fiiriyo shabeellada hoose awoodooda iyo dhaqaalaha iyo dadka maamula iyo dadka xukuma waa aniga weeyaan walaalle qof walba oo Soomaaliya oo maanta adduunka dhexdiisa joogana wuu ogyahay afgooy aniga cashuurta ka qaada marka ana cashuurta ka qaada baraawi ana cashuurta ka qaada shabel wala weyn ana cashuurta ka qaada inta kale waa inta kale nimanka afduubka ay haystaan marka gobolka shabeellada hoose hadda ninka ilaaha waa Mirifle markii haduu digal iyo Mirifle ahaan u doodayana aniguna waxaan u doodaya dadka leeyahay israhan uu sheeganayo dhammaan boqolkiiba 90 markii laga hadlo beesha abgaal beesha abuudan beesha hadarbiir beesha xawaale beesha shiqaal iyo beesha maaragtay ajuuraan iyo beesha waliba biyamaal oo anigu israhan afleena dig aflanahay irib dhammaantood waa dadka gobolka shabeellada hoose boqolkiiba 90 ninka hadda ila doodayo Mirifle asagu waa Mirifle waxar Mirifle hal waxar oo Mirifle shabeellada hoose ma digana su'aalan ku weydiiyay marka adoo soo koobaya 1 minute haddaad basa u sheeganaysid gobolka inaad mas'uuliyadiisa gacanta ku haysid 1950 aad timi meeshaan dad deegaana jiro la yaqaan oo dadka Soomaaliyeed ay wada garanayaan adigu waxa doonto ku sheeg oo meeshaan asalkoodii loo aanayay inay iyagu ka yimaadeen dadkaas cabashooyin badan iyo dhibaato badan bay ka sheegtaan marka adiga laga hadlayo internetada meel walba way ku cadday Mirifle xagga inoo dhig dadka bilaadanka Soomaaliyeed xuquuqdooda maxaad ugu tumanaysaa u dhowriyay horta walaal dadka caawaraya waa isla arigi weeye jaamaco midda kale burburkii Soomaaliya kadib markii dawladihii Soomaaliya meesha ka baxeen waxyaalo badan waxa yimid dadka in gacmahooda iyo maaragtay siyaasadooda ay isgaarto dadkan walaalahay caawanayo hadda beesha biyamal waa isla anigi weeye waa isla arigi oo maaragtay wax isku haysto awood isku haysto waxaad la socotaa siyaasaddu inay horta mar walbaba ay ka qaraartaa wax kaste aydiid Allah u naxariistay ismaacata Allah u naxariisto aniga soo jeeda belaan ayaa siyaasadda Soomaaliya isku dagaalamay si ay u maamulo oo labana wada soo walaalaha marka beesha biyamal iyo aniga waxa naga dhaxeeya ma ahan qodob maanta taagan ma ahan wax laga dooni karo Miriflana uma soo gamba karo beesha biyamal ba marka ka hadlaysa ama shabeello hoose ka qeynaysa ana u doodiyo jidis asaga wax u banaan ma aha wax uga banaan ma jiro aad baa umahadsan tahay waa islaanagiidii waxaan u daynayaa wadani iyo xisbiga kulmiya markay codka kala heleen marka nin baa yiri waa islaanagii ciyaarta la joojiyay aad baa umahadsantihiin Mirifle waa maqlaysay ninka la yiraahdo raaxeeye qaabku uga jawaabay su'aalihii iyo meesha hadalka la maray ku soconaa horta waad mahadsan tahay waxaana ilaahay mahadiisa walaha oo dadka majority-gana dhageysanaa ilaa kumanaan qof aan dhageysan inay moodkay ku jiraan waayo haddii mood ku jiraan ceeb baa dhici leh dad badan baa qosolkooda aan maqli lahayn especially hadda saaxiibkayga hadalku ka dhawaaji uu leeyahay annaga ogolaanay oo siinay gudoomiye ay ka naqdaan bal waxaan rabaa inuu qofku yahay uu is ogaado ninkan 1991 wadanka Soomaaliya asaga ku habsaday caasimadda Soomaaliya asaga qabsaday haddii tanaasulkaasi wax qarashadaas uu leeyahay cid xukunka ku haysatay Soomaaliya madaxweynihii ku xigeen iyo ka saddexaad midna ma jirin sida tikreeda camalba wadanka u maamuli lahaa wixii ka dhacayna waa la ogaa magaalada Muqdisho inay noqoto meel duwaagta ay ku hoydaan waa he's the man oo arintaas sameeyay maanta wuxuu noo sheegay inuu digil Mirifle asaga wax u waxyoodo oo wax u gartay waa ninka hadda 2017 lagu jira oo rotation lagu siinayo meesha la yiraahdo Djibouti oo la barayo qaabka tanaasulka and I wish nimanka Djiboutiyaanka inay ogaan laayeen 27 sano ka hor maanta dawladda qaran baan ahaan leen horta Soomaali meeshaasaad kaga jirtaa that's who you are marka way ku fiican tahay sharaftaadina adigu xataa inaad dhooratid oo waxyaalaha qaarkood aad ka xishootid waa dad badan inay kugu qoslayaan tanaasulkaasi wax qarashadaas iyo xilkasnimadaas hadaan leedahay
horeya lagaaga arki lahaa. waxaa ku soo haray arrintan oo hadda uu leeyahay dadku uu rabo horta inuu kala saaro. ninkaa horta waxaa raaci ugu horeeyay beesha asaga Israel uu ka soo jeedo hawiye la yiraahdo. meeshan waxaa ka talin jiray boqortooyo la yiraahdo Geladi. Allah u naxariista Ahmed Yusuf Ahmed Sultan Balshafe ayaa meeshan ka talin jiray ilaa 1925. raaci ugu horeeyo oo hawiye wax sheegto isr hawiye sheegta ugu horeeyo meeshaas soo caga dhigtay niman la yiraahdo wacdaan 1909 bay imaadeen iyo niman kale oo munaasiliya labadooda dhibaato iyo barakac loo geystay ayaa resettlement sida Mareykanka anagu loogu soo dhaweeyay oo la keenay degmada la yiraahdo Afgooy waxaa ka jira wax la yiraahdo 9 gambar. 9kaas gambar si ay iskaga dhex arkaan exactly waxa maanta ka socda dawladnimada Soomaaliya oo la yiraahdo beelaha waa inay iska dhex arkaan ayaa 2 gambar loo siiyay. ka badan kuma leh ka yarna kuma leh. dadka wadada lagu rafaadinayo oo gabdhooda lagu kufsanayo oo xildhibaan Idris uu maalin dibeed golaha uu sheegay marifle maxaa kaga jiro leeyahay marifle ma cirkan u maraa xamar anigu dekad kale ma qabee dadka lagu baabi'inayo anuu rabo inuu kala saaro digil iyo mariflahan iyo kala saaro hatta ka qaad hadalkiisa aan u raac aniga iga dhignin reer bay dhawaa wadada aan marwaatan inaad boontigaana ka dhaca inaad arado ma santa mariflo boontigaas dib aan wadi doontaa hore baan u sheegay haddaan idin joojiyay waqtiguna dhamaado waa inaad meesha ku istaagtaan raaxay aad ma santa soo dhawow mar kale waxa lagu leeyahay magaalada Djibouti ee caasimada dalka Djibouti magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti oo isku laabtaan ayaa shirki ka dhacay sunna wal jameeca iyo galmudug orientation baa lagu furay xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada lagu baray inteeda heshiin arrintaas iyada oo ku furay mirif la hadalkiisa adoo ka bilaabay doodaada soo dhaw markale microphone horta waxay mirif la waxa moodaa shaqada hoosa yahay laakiin baashi waa maartay meel kasto hadda maartay iska cantiga laakiin no problem inaad rotation-ka aniga kaliya ma furnayo Soomaaliya dhan doorto furaya waxaad ogtahay Somaliland iyo Soomaaliya in Turkiga walaha loo socday oo halkaas lagu wada siinayay maartay si uu shiilahay si uu maartay jiro noqon lahayn si dawladda uu suubisan lahayn waxaad ogtahay dawladihii ku meel gaarka Soomaaliya loo dhisay in Cabdullaahi Yuusuf lagu soo doortay Nairobi in Cabdiqaasim lagu soo doortay Djibouti markastoo maartay dib u heshiisiin ama wada hadallo Soomaaliya dhexdeeda ah meelo ka baxsan Soomaaliya waa laada wax dhibaataan ay ku jiraan waxaasna issue aniga la igu dacaadeyn karo ama hadda dhibaato la igu raadi karo maahan cali khaliif daleer iyo silaaya arkay sida Djibouti iyo asagoo ku hadlay horta intaas ma taas uga jawaabaya ayadoo fusho ah saacadka miriflo waxa fiican in wax fiican la yimaado oo soo diyaariyo dabcan maanta ma diyaarsanaysaa u jeedo waxa laga ku sheego horta anu Soomaali waxaan ka ahay barbana cadeeyo Soomaali waxaan ka ahay ninkii Soomaali ugu horeeyay ee xirnimadii markii la raadinayay all of the world adduunka lugtiisa ku maray Cabdullaahi Ciise Maxamed baa iga dhashay oo aniga soo jeeda oo Ingiriiska u tagay oo African Union u tagay oo magaalada Mareykanka joogna New York ninkii ugu horeeyay Soomaali qofkii ugu horeeyay oo wax saxiixa ayuu ahaa ninka waxaan ahay 10 sano 1960 dadka u dhaxsoo maamulahay ayaan anigu horta ka soo jeeda oo haddii noqoto dadnimo iyo ninkaas baa iga dhashay Cabdullaahi Ciise golden guy oo uu samirifle haddii xaafadiisa dhan lagu laabto ay sakeeni kareen qof la mid ah horta ninkaas baa iga dhashay number 1 sidoo kale inaad yar 1952 ilaa iyo 1965 magaalada marka waxaa ka soo geli jiray nin la yiraahdo Xaaji Faarax Cali Omar wuxuu ahaan jiray dadkii weyn oo dawladda ka soo yaqaanaan dawladdii Cabdullaahi Ciise iyo tiyaana adaba wuxuu ahaan jiray wasiirkii maaliyadda waxa weeyaan ninkii lacagta ku saxiixay lacagtii Soomaaliya waagii dawladda daakhiliga Cabdullaahi Ciise xukumi jiray 6 wasiir ah ninkii wasiirka maaliyadda ah lacagta ku saxiixna magaalada markuu ka soo gali jiray waa 1952 ilaa iyo 1965 magaalada Baraawe oo hadda la yaqaano aan ka xeebta la yaqaano ninka odaga oo doorashada 3 jeer u soo istaagay leeyahay Cabdullaahi Axmed Cadow aabihiis baa wuxuu ka ahaan jiray chief iyo gobortore dadka cadcadka iyo dadka meesha dhiga dhamaantood wuxuu u ahaa sandaro caaqil la dhageysto dadka xukuuma maamulo asaga loo hoos dhigay ahay marka ilaa iyo waaga ilaa haddana meesha shabeellada hoose aniga gacanta ku hay wuxuu ku sheegay inuu indhacada ka tirinayo dalka maamulay waxa ku sheegaya in ID Allah u naxariisay
جرم حافظ 1991 إلا 1997 إنه أصله قعنت كوهاي باي يبقول يشغل وأصله وبعمله إلا مركي دنبو ودمتي أنا مرفلا أنا إلى الدوبية وأنا كان حرية دوسية ومدى الصوماليات حرية واحد كقاعدين إنجليزي ترياني لكن مرفلا أنا aad ma santahay oo soo noqon doona miriflow soo dhawow raaxaya waa maqlaysaa kursiga xirka ayuu isku shareeray sheeganaya in yahay mataqaana aabihii mataqaana ummadda Soomaaliyeed gobonimada iyo xornimada ku soconaada horta waad mahadsan tahay niyo horta golahan in muddo ah waan ka wada doonay dadka golahan waa u sheega waxaan yiraahdaa waxyaalaha xaafadaha lagula sheekaysto xaafadiin ku sheekaystaan ku haysta xaafadiin horta ninka asaga haduu sheegay Cabdullaahi Ciise de adigu laga yaabo xataa jaamac ahaan inaad from different perspective am opinion kale inaad ka haystid laakiin anigu shakhsi ahaanteeda waxaan ka haystaa ninkii ugu horeeyay Soomaali assassination qof ku dila inuu asagu ahaa wuxuu dilay Ustaad Cusmaan oo raadina waxa maanta dadka Soomaaliyeed ay u dhimanayaan hadda khudbadii ugu dambeysay prime ministerka Soomaaliyeed uu ka hadlay federal system ninkii raadina Ustaad Cusmaan oo reer Afgooya ah Ilaahay naxariista janaa ka waraabshay ninka assassination ku dilay oo ninkaas u soo socday bari asagoo imaan rabo New York waa ninka assassination ku dilay horta taariikhda Soomaaliyeed oo dad badan oo Soomaaliyeed ninka horta nooc ay ka aaminsan yihiin waa noocaasi waxa ku soo hartay arintan kale oo ka hadlay xuriyad baan ku siiyay horta xuriyad ima siinin dulli iyo balaay iyo dhibaato iyo waxaan hore loo arkin maalin baa waxa jirta nin Mareykan aan wada sheekaysaneen waan xanaaqay I get offended su'aasha ninka Mareykan ku iweydii ma aha wax jaamac yara sameey ma aha wax aniga aan sameey waa wax ninka raacay Soomaali uu ku sameey waa asag shakhsi aan u sameey anaa Soomaali aan bay ii dhigtay TV waxa laga soo saaray dad nin Mareykan dhul ku jiidayo hilibkiisu cunay ma dadkaad cuntaan uu igu yiri aad baan u xanaaqay horta niyo taariikhda Soomaali dad la cuna iyo koronto lala baxan nin gurigii uu degnaa blokeeti kala baxa jiingadaha ka fiiqda dokumentariga wadanka uu lahaa wasaaradda gaashaandhigga iyo TRM dibadeed ninka sokor ku duduubtay horta taariikhda Soomaali noocaas horta ka gashaa taariikhda Soomaali waxaad ka gashaa tan yoomanan hada gabar rayid ah masaakiin oo baawur saar rakaab ah in la soo dego cunugii yaraa nin xildhibaan baa golaha noogu sheegay oo yiraahdo maxaa la yiraahdaa ishak intii ay tiraaday cunugeyga naaska aan nuujina oo cunugii saqiirka xabad lagu dhifto horta taariikhda you are that is the history adigu Soomaali aad ka gashay oo aad taqaanid Soomaali taariikh waxaad ku leedahay midda ah in wabigi Shabeelle oo dad rayida masaakiin qaxooti oo walaalahaaga ah inaad ku daadisid Soomaali taariikh waxa ku ah yoomanan hada dawlad Soomaaliyeed oo dhisan inaad maaragtay u soo hor istaagtid wasiir oo sida wax ku soo bartay Ilaahay og yahay xaaladiisana Ilaahay uu og yahay inaad hor istaagtid aad tiraadid loo ma dili karo mooryaankii dili taariikhda Soomaalida horta meeshaad ku leedahay waa taariikhda noocaas waxa ku soo haray taariikhda Soomaali jananka adigu qaraabada aad aheedeen in uu yiraahdo uma Soomaaliyeed oo baabees asagoo baasto cunay si inantay ku jirta oo yiraahdo this is your people it's not my people uu yiraahdo taas horta taariikhda Soomaaliyeed ku jirta aad waa dheertay waa ku sii socon doontaa marmar baan idin siin doonaa kadibna gabagabaan idin siin doonaa su'aal baan idin weydiin doonaa labadiinaba oo gabagabaha mid walba gaar u qusaysa raaxayo aan jaanisku siiyo briefla wuxuu taxayo de waa wixii maxkamadaha caalamiga la isku soo saari jiray ma isleedahay khatar baa ku sugan tihiin arday briefla saaxiibkeed waxaan moodaya nin siyaasad iyo dhaqaale iyo awood iyo power maanta ula challenge gareenayo maaragtay doodiis laakiin hadday tahay kursi iyo beer iyo isbaaral dhigto waxaas hadduu ka doodayo dani horta niyo anigu wixii caya shuqul kuma lehi anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah aqoon leh ummadda Soomaaliyeed iyo future mustaqbalka raba marka I don't want horta inaan ay tamo I don't want inaan mirflo wax ka sheego I don't want cid kale wax ka sheego anigu waa la awoodeyda iyo powerkayga iyo siyaasadeyda ayaa miiska soo saartay iyo awoodaan ku joogo Shabeellaha hoose waxa yaanta la soo celiyaa la sheegayaa waxaan kale oo dadalayo waa wax markii anigu aan raadinay powerka siyaasadeed marka awoodda siyaasadda raadinaysid wax kasta oo minor oo yar way dhacayaan waxaasna cid loo qabto malaan Cabdullaahi Yuusuf markuu Soomaaliya madaxweyne ka ahaa Muqdisho Ethiopian keeno dad ku duqeynay
waxaasna awood buu ku raadinayo waddanka si kala dambeyn iyo nidaam lagu raadiyo waxa marka wuxuu dadalayo waa wax awoodii iyo powerkii iyo kabiye meesha la dhaxmarayay wax ka yimid weeye waxa kala soo hartay isaga laba hoos u soo laabanayna arinteeda iyo beerahan iyo waxyaalahan mar walba uu maaragtay ku soo laabtay horta beeraha anigu aan gacanta ku hayo maaha beeraflad mirifle leeyahay ama cid kale oo Soomaaliya leeyahay beeraha waa beero Talyaani iyo German leeyahay hadduu mirifle Germany iyo Talyaani uu yahay ayuu sheegi karaa anu beeraha haysto niwbiyaasha haysto ya dhulka xukumo waa dhul Talyaani iyo dhul Germany dhul Germany iyo Talyaani markay soo laabtaan ama dawlad federaal ay timaado ka horna gacanteeda ma ka baxayso mirifle tala iyo qabiil aniga ila mid oo South West aan ka wada tafanayna aniga iguma soo jartaabka iyo wana soo raadin karaan mana awoodasna ma laha mirifle absolutely inuu san awood oo aniga igu weydiiyo beeraha iyo webiyaasha shabeellaha isku yaala waxa uu soo lahayn waa wala reality runta ka hayaay marka waxa weeyaan South West waa soo hartay awoodeeda mirifle wuxuu ka yahay beel aniguna waxaan ka lahay beel adeer beel ma xukunto maamulka South West oo Shariif wada hoostignaa awood baana ku leeyahay xildhibaanna ku leeyahay wasiiraan ku leeyahay taliyaal baan ku leeyahay agaasimayaal baan ku leeyahay waxaasna adeer la iima siinin wax la iisiya maahan garasho iyo maaragtay in la yimaado maaragtay ninka lagu xurmay maahane awoodda iyo dhaqaalaha iyo powerka shabeellaha hoose iyo South West aan ku leeyahay baan ku qaad inaad war ma fita aad iyo aad baa mahadsan tahay waqti baa dhiisaf garaysan badan hal su-aal oo conclusion ku weydiin doonaa miriflan hadda siinayaa isagana kadibna su-aal baan weydiin doonaa miriflow inaad soo dhawow jaaniskaadii ugu dambeeyey inkastoo ay su-aal kaaga dambayso oo xalka qusaysa ku socodna gaadaas kale inaad horta waad mahadsan tahay niyahow history is a history qur-aankeena oo sharafta leh oo rasuulkeena salawaatullahi calayhi wasalam loo soo waxyooday waxaan maleynayaa culimmada igaga fiican waxaa ku badan taariikh ha xumaata ama ha samaata qoom fiicnaa oo ilaahay ka baqaayay oo wanaagsana oo liibaanay iyo kuwo kaloo ilaahay halaagay oo ka mid ah qoom lood iyo wax kastaba lagama jircooda taariikhda inta aan sheegay adaa marka ah ummadda golaha ku jirta marka ah wax makeup anigu hadda aan sameeyay ma aha is a history horta taariikhda aan ka sheekeyna waa noocaasi waa mid jirta mid la iska hindhatiri kara ma aha waxaan rabnaa arrimahan kale oo hadda gobolkan South West horta gobolkan South West ciddi degan waa la yaqaanaa dadka maamulka ugu xoog badan waa la ogyahay waxaana waan ku sheegay waa step day by day wax badan oo hadda la hagaajiyaa jira ninka hadda hadlaya gobolka shabeellaha hoose 15 sano ka hor waxaan marqaati ka ahaa ninkan asagoo cudud asagoo uu sheeganay jid iyo jahdid wixii ayaal faacil ahaa wixii ahaa ayaalkii siyaad barkorsan jiray oo ablaanta intuu soo aruursaday ilaa all the way wala day leeway maxaa la yiraahdaa Kenya labada meelba uu taagnaa uuna ku hay anaa meeshan taabsaday xoog halaga qabsada maanta xaaladdu waxay taagan tahay gobolka shabeellaha hoose maanta kama hadli kara asagii ninka la yiraahdo Axmed Diiriye kismaayaysan ka hadli karin gedaysana ka hadli karin baydhabaysana ka hadli karin xudireysana ka hadli karin ma aha meel rabbi sal iyo faataxa oo asagoo la baryahay meel loogu soo saarayna male nidaamka hadda socdo shariifku wax ku wada anigu kuma qanacsanay anigu waxaan ku qanacsanaa maanta dawladnimada yar aan haysana ilaahay ka soko waxa keenay Mala Zanaawi iyo Cabdullaahi Yuusuf oo ogaal labadoodaba ninkan raaxeeyaha in la karbaashama iyo salaad cali jeere allah u naxariista maxamed deero iyo geedi oo ogaa ninkan in la karbaashama ahe rabbi sal iyo faataxa ilaahay ka baqnin iyo soomaalinimo iyo sariik midna inuusan lahayn shariif xasan mid aan ku diidana waa nin walaalkayga isku meel ka soo jeedna oo aan asnaqaana 100 mar ka sheekay caruurtiisa everyday soo bacdo aan wada xariirnaa mid aan ka diidana waa mid uu shaqayn karin waa ninka fartu yaqaanaan ogahay awood uu sheegayna asaga sheegtay markuu isirka uu sheegana hatta isku imaadan aniga awood meeshan dhulkan Soomaali ugu barwaaqasan labadan wubi laguma joogin faataxa nin nidaam iyo kala dambeyn inta soo boqortooy ah
kasoo talin jirtaan ahay boqortooyadan axmed ninka la yidhaahda axmed yuusuf oo geladii ayaa noo talin jiray aad ba umahadsan tahay waa kusiinaya jaaniska ugu dambeeyaan kusiin doonaa aad ba umahadsan tahay barnaamijka gabagaba ku socdaa hal su-aal baan weydiin doonaa raaxeeye su-aal kalena waxaan weydiin doonaa mirifle kadibna barnaamijka waan soo xiri doonaa su-aashaan ugu dambeysana waxaan isku daya inay tahay su-aal xal iyo isku soo dhawaansho ah raaxayo soo dhawo waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo gobolkan shabeellaha hoose waad ku nooshahay south west waxaad sheegtay inaad ka tahay beel degan kamid a beelaha degan maamul goboleedkaas kamid ah dadka soomaaliyeedna xilliga hadda lagu jiro 2017 waxaa la rabaa in xal la gaaro nabad laga shaqeeyo hore loo socdo eedo badan baa lagaa tirsanaya marka laga hadlayo gobolka shabeelle iyo dadka deegaankaasi ku nool oo kasoo jeeda kuwo badan baa ku dhegaysanaya oo aan mirifla ahayn oo deegaankaasi kasoo jeeda sidee bay suurtagal ku tahay in nabadgelyo la helo kow inaad gobolkaas ku noolaatid oo ka shaqaysatid labo dadku inay kala nabad galaan deegaankuna uu mataqaana hore u socdo 3 daqiiqo ku siinaya ku socdo inaad yar waa mahadsan tahay inaad horta nabadda iyo maaragtay in la wada noolaado gobolkuna uu dego dadkuna ay walaal noqdaan oo gacmaha iskastaan oo la shaqaysto nabadna lagu wada noolaado cidiidan ma jirto cidiidi kartaana ma lahan waana wax iska international ah oo adduunka looga dhaqmo gobolkan hadda maamulka horta waxaa xukuma South West dawladii federaalkana waa joogtaa oo dalka xukunta dalka dhan mas'uul ka ah anigu gobolkan hadda dhibaato ku hayo oo maaragtay asaas sheegaysid wax badan laga tabanayo waxaa miiska soo saari doona dawladii federaalka iyo maamulka South West aniga iyo midflan xukumo oo Sharif Xasan uu hogaaminayo laakiin meesha waxaa moodaa waxyaalo badan oo nimanka afka duuban iyo qabaa'ilo ay suubiyaan in aanay dhinacayga maaragtay loo soo riixo loo soo diyo markii loo moogtaa wixii xun baxaawale maaragtay ba meesha ka socota laakiin waxaa rabaa kaloo maaragtay su'aal soo jawaabaya walaalle nabadda anagu haddaan nahay beeshaan waan ka soo jeedo iyo guud ahaan intaba diyaar baan u nahay dawladda federaalka baan hawshaas wada dawladda South West baa hawsha wada annaguna waa ku taageerina dadka meesha shabeellaha hoose degana waa dad walaalo ah oo aan isgalnay oo xididii xigaalanahay nabadna in lagu noolaado diyaar baa loo yahay processkuna wax walbana cunugu markuu dhasho hore kama guguurto horena kama ordo wax walbana step by step sidoo Murifo u sheegay ayay ku soconayaan waxa kala soo hartay wuxuu leeyahay ninka ugu soo celiyaa ninka ilaa iyo wuxuu tagay meesha ugu dambaysa Sheikh Raskadoni haddana meesha ka joogo ni hortay waxa rabaa tusaale yar ku tuso dalka Ingiriiska Great Britain East Africa iyo bariga Africa iyo Central Africa ba saa xukun jiray haddana waxa aragtay in London ku soo aruuray Great soo aruuray marka anigu dadkan waxa raadiyay waxay awood siyaasadeed iyo power siyaasadeed ma ahayn dhul iyo xoolo iyo maaragtay waxa awood baa raadinay awoodina hadii socon weysay dadka inaa xorriyad siiyo ninkooda ay ku soo laabtaan nabad ku noolaadaan aniguna meesha aan ka imid aan ku soo aruuro oo wax iska international oo Ingiriiska iyo Mareykanka wadanka waa adduunka dhan bay xukumin jireen haddana meesha ka joogan oo garanaysa marka su'aashaasi gabagabada waxa weeyaan waa karbaas buu ka dhawaajiyay horta karbaas waa anigu cidaan ka soo jeedo waa la garanayaa Miriflan xaafadda uu ka soo jeedo waa la garanayaa markii hore ummadda Soomaaliyeed aniga asaga waana wataqaana anigu waxaan ka soo sheekay war haddii Soomaali wax tahayna meesha aan ka ahaa haddii burbur noqotona meesha aan ka ahaa haddii awood noqotona intii miiskaan soo saaray Miriflan intaas oo kale miis soo saaran awood ma saadam sheegan Abdullah Isoo kale uu sheegan awood ma uu sheegan power ma uu sheegan 7 sano baan uu xukumay baay iyo bakool iyo shabeellaha hoose aydid markuu dhintana caruurtiisii way ka soo darto waxay yiraahdeen aaba buu dhintay dadka faraha laga qaad maalintaas uu xorriye qaatay Miriflan inuu ila doodo marka Miriflan oo aniga dood ila soo aasbo wallahi bilaa uu saastahilin laakiin saaxiibkay waa soo dhaweynaya laakiin ninkan waxaan ahay Miriflan gaalkacyo aan ku ahay meel waxa jirta laba kaam oo 13 koob digil iyo Miriflan ka soo jeedaan oo anigu aan ku biiro oo kaararka ku siiyo xamar baa waxa uga furan tahay 13 kaab oo anigu aan ku biiro oo kaararka ku siiyo awood hadda South West oo dhaqaalaha baa uu bixiyaa gacanta ku haya waa maasanta waa ka aad baa maasantahay raaxaye Miriflan soo dhaw wax rabaa in hal su'aal ku weydiiyo inkastoo oo barnaamijkii su'aasha gabagabada ay saaxiibkii dibka kululay 3 daqiiqo rabaa inaan ku siiyo gobolkan iyo deegaankan uu ka taliya maamulka South West dabcan dad badan oo Soomaaliyeed baa degan ninka la yiraahdo raaxayana ama xooga ku yimaado ama si kale ha ku yimaado ama Mooryaan ha ahaado ama madax hore ha ka ahaan jireen waxaynu isla qareynaa inuu xilliga haatan la joogo uu meeshaasi degan yahay adiguna waxa tahay awoodda koowaad ee deegaanka iyo madaxda maamulka sidee bay suurtagal ku noqonaysaa
in dadku raalli iska wada noqdo deegaanka lagu wada noolaado adigu aad madaxdii ahaatid amniga dalkana aad deegaankana aad sugtid raaxeeye iyo adiguna ay isfahantaan horena aynu u socono kusoo dhawow 3 daqiiqo horta waad mahadsan tahay yow anigu eridan ka soo jeeda iyo dadka aniga aan ka soo jeeda midna niyahow ma diidan isla noloshaha wax wadaaga Soomaalinimada Islaamnimada dadka soo horjeeda ma nihin raaxay hadduu yahay nin wax lala wadaagi kara gobolka Mudug ka soo jeeda adigoo jaamacad isku degaan aad tihiin adaad maaragtay maanta xal u raadin lahaa ama adiga kugu soo darsamo ama adiga ku darsan adaa xal la heli lahaa raaxay sidaad ogtahay sida adiga iskaga fogeysay oo maxaa la yiraahdaa iskaga takoortay oo aad u dhigatay siliga Mareykanka oo kan darbiga uu sheegay u dhisatay in laga dhisto ma horta xal gobolka Shabeellada Hoose male raaxay jaanis badan baa la sorta maanta waa ku faraxsanahay inuu qirto inuu soo jabay uu yiraahdo waan soo jabay ilaa ay waladay waan joogay waa la soo jibay sida Ingiriisku uu yiri maxaa la yiraahdaa London ay ku hareen meel Shabeellada Hoose ku haray meesha waa laga saaraya waxa ku soo haray xalka gobolkan niyo dadka deegaanka degan marka reality laga hadlo dadka originalka ah oo deegaanka degan niyo waxba isku madiidan way is ogol yihiin waxa maar loo laayahay oo laga daalay xalka aan loo haynin xalkan uu yahay maar oo ina cadeysteen odayaashoodan ay sheegeen oo yiraahdeen meeshan maar baan ku qabsanay maar hal noogu saara xalka meesha jira waa kaas Shariif Xasan waqtigiisa uu dhamaanaya maalinku Shariif Xasan waqtigiisa uu dhamaado the right people oo raggan afgaran kara oo ay yimaadaan macnaha maalinkaas horta xal loogu raadina xal loogu qaadaya mideeda kale arintan uu leeyahay baydhabo waa ka soo tagnay baydhabo kama soo tagnay faataxana lagaaga ma soo saar ilaa hubkaaga yoomanan hada waxa loo sameeyay maxaa la yiraahdaa ii sheeg museum baa loo sameeyay oo lagu daawada caruurta la baraa oo la tusaa hubkaaga meesha la joogtay wixii laga soo qabsaday inaad faataxa ugu soo bixin adoo BM iyo maxaa la yiraahdaa kaara aramaati hubka wadanka oo dhan wata anoo kaarbin wata inaan ka soo cirsado waad ogtahay marka horta qofka raganimadiisa iyo dadnimadiisa inaa qirto way fiicnaan lahayd oo faataxa iyo rabbi salli inaan meesha lagaaga soo saarin taas horta inaad ogaatid waxa ku soo haray arintan guud ahaan xaaladda maxaa la yiraahdaa aad weydiisay xalka niyo xalka uu soo dhow yahay wayna dhamaanaysa maxaa la yiraahdaa wax badan filmaan badan baa soo gubtay nimankan maxaa la yiraahdaa al-shabaab iyo qolooyinkan oo maxaa la yiraahdaa maleeshiyaad iyo nimankan hormuud oo ganacsatada waxaan oo dhan wararkooda step dawladda iyo anagu waan sognahay wax badan baa fiilooyin badan baa maalin kastaba la furfuraa marka sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan ummadan deegaankaas degan ilaahayna wuu u nasteexayn doonaa hiridiiro fiican iyo ifafaalo fiican wax badan oo qurux badan baa niyo soo muuqda insha Allah wayna dhamaanaysaa